Hoy hoy Soomaaliyey hoy 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 Soomaaliyey hoy 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 Soomaaliyey hoy 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 Soomaaliyey hoy Haddad wax maqlaysaan hadalkayga qaato Haddad wax maqlaysaan hadalkayga qaato dhulka horumarkiisiyo hawl hadidinaaye ku dhawaad 900,000 oo muhaajiriin ah ayaa 5 sano ka hor gaaray dalka Greega balse waxaa hadda aad hoos ugu dhacay naxariistii iyo soo dhaweyntii dadkaasi xilliga loo muujiyay dawladda Greega ayaa go'aan ka gaartay inaanay noqon halkaas laga soo galo Yurub waxaana ay bilowday qorshayaal ay isaga ilaalinayso inay soo gaaraan qaxooti cusub xukuumadda conservative-ka ah ee dhawaan la wareegtay talada dalkaasi ayaa bilowday inay taageerada ka joojiso dadka ay u aragto inay yihiin muhaajiriinta dhaqaale doonka ah waxaa dadkaasi kamid ah Maxamed Cali oo qadka telefoonka ugu waramay wariyaha BBC-da ee Cabdifataax Ibraahim Cagayare iyo xaaladdanadu waxa waa iska bariga dhaxa meeshan Greega waxaan imaaday bishii 6 2019ka muddo sanad iyo xoogaa baan joogaa marka interview ayay wax naga qaadeen marka wayna aqbaleen baasaboorkii iyo iqaamooyinkii baan sugaynay marka hore waxayna siinayeen wax lacag oo 90 euro lacagtiina way naga jareen guryihiina way naga saareen marka noloshu way iska adag tahay meesha aan ku jirno ma garad ma idin sheegeen sababta ay lacagtiina idinkaga jareen guryihiina idinkaga saareen sababtu way noo sheegeen waxay dhaheen wadankan haddii la aqbalo xuquuq ku yeelatiin adinka isdabara marka xageen isu dabarnaa baan dhahnay intaan documentigii aan nasiiseen aan ka dhamaystirinayno marka waxay dhaheen anagu intaas ka badan ima hayn karno intaasaan insoo haynay marka isdabaro marka waxay noqotay annaga hadda guryo waxaan joognaa oo magaranaysaa jajaban oo aad u silacsan meelahaasaan joognaa marka laba baaq ayaan diri rabay baaqna waxaa waaye qolooyinka xuquuqul bini'aadanka inaan baaq u diro baaqna waxaan u diraya dhalinyarada Soomaaliyeed oo Turkiga visa usoo qaadanayso Greega usoo gudbayso inaan la wadaago dhibka meesha ka jiro in wadankaanadi wax noo dhaamo uusan jirin meeshaan silac ay dhibaato ay taalo maxamedow waxaad ii sheegtay in dawladda Greega ay warqadaha aqoonsiga qaxootinimo idin siiyeen walow qaar ay ka dhiman yihiin marka mar haddii warqadaha aqoonsiga la idin siiyey ma in cunada afka lidin galiya rabtaan maad shaqo tagtaan shaqo wadanka ma lahan warqadihii dokumentiga aan ku shaqayn lahayn ama aan shaqo ku raadsan lahayn weli wuu naga dhiman yahay midda kale bil masalan aqbalaadana siiyeen baasaboorka faradhigisidiisoo kale waxay noo qabteen waqti aad u dheer oo kamid bisha 1 2021 intaasna meelaan kusii noolaano ma haysano wadankiina dee warqadihii sharcigii aan ku shaqayn lahayna weli waxbaa ka dhiman dokumentiyadina la siiyaa kala dhiman sidaasaa yeelaysa marka inaan cabano markaad cabashada gudbiseen maxay idin sheegeen waxay dhaheen dawladdu amarkaas ka soo baxay marka annaga han laga warsugo ayay la dhaheen dawladda Greega oo war soo saartay waxay sheegtay in dadka qaxootiga rasmiga ah ay gacan qaban doonto kuwa kalena ay banaanka dhigi doonto marka arintaas sidee idin saameyn doonta maya anaga wayna aqbaleen qolooyinka kalena waxaan u malaynayaa kulley ma garanayo kuwaas way yeeli doonaan laakiin anaga wayna aqbaleen maadaama ayna aqbaleenna waxay dhaheen hal isdabaro alaabta banaanka noogu tuureen maxaa kamid a marka dhibaatada aad sheegaysaan inay meesha idinku hayso waxaa kamid hoy la-aantaas iyo dhaqaale la-aantaas oo macnaha waxaan magaalada kusoo iibsano maadaama lockdownka wadankiina ka jiro waxa weeye cabashadaanada ugu badan waxaa waaye dhaqaalena ma haysano meelo aan hoy oo istaaxanana ma haysano marka hadda muhiimadda waxa noogu daran hoy inaan helno goormaa laydinku wargeliyay in lacagtii laydinka jarayo oo guryihiina laydinka saarayo waxaana lagu wargeliyey bishii 7 kowdeeda ayaana la wargeliyey oo nolosha guryihii waana laga saaray xataa waxaan haynaa
haysanaa warqadihii noolaga bixiyey ma garanaysaa guriyihii oo caddaynayay in guriga aanu kusii jiri karin oo noolaga bixiyey. marka dabcan waa muddo 2 bilooda marka muddadaas 2daas bilooda sideed naftiina ku maareynaysa? muddadaas waxaan nafteena ku maareynaynaa dhalinyaro kale oo weli aanu guryaha laga saarin oo ma garanaysaa ayakana qaxooti cusub ayaan wax la wadaagnaa. waan iska noolnahay waxaa weeye hadee bini-aadan baan nahay, ilaahay baan na irsaaqo, marka biyahanadii waxaasan iska cabnaa waan iska noolnahay. marka dhibaatada noogu badan waa taas. Soomaali kaliya tihiin mise dadka kale ee muhaajiriintana arrintan way idinla qabaan? waynala qabaan dadka muhaajiriinta, Soomaali bas maaha. marka muhaajiriinta maadaama nooga soo horeeyeen wadanka, qaarna waa iska dhaqaaqeen oo wadankii waaba ka baxeen, balug bay oga baxaan inta badan. annaga meelaan aadnana ma naqaano, dhaqaalahan ku baxnana ma hayno, marka laakiin waynala qabaan dadka kale muhaajiriinta. markii hore xageed ka timid adiga? Turkiga ayaan ka soo galay aniga. xageed ku socotayna? Yurub baan ku socday. oo maxaad ka raadinaysay? waxaan u socday in aan meel aan ka shaqaysto oo garanaysaa nabadgelyo aan helo. markii aad soo safraysay ee aad Turkiga ka soo tagaysay marna maankaaga ma gelisay in midda haatan ku haysatay kugu dhici karto? maya ma ka warhaynin, mana umaleynaynin. haddii aan u haysto maba soo bixi lahayn. malaha waxaad lahayd jannadii adduunka ka horreysa? maya janno inaysa adduun jirin waa ogaay, laakiin nabadii waxaan raadinayay meel lagu noolaado. dabcan tahriib adag baad soo martay, Turkiga iyo Greek badii baad soo martay, haatan xaaladaada waad aragtaa siday tahay. qofka maanta ku dhageysanaya ee ku haminaya inuu sidaadoo kale safar usoo galo dhinaca iyo Greek ama Yurub oo kale badda uu soo galo, maxaad u sheegi lahayd? waan kala talin lahaa, kulley waana abuur baa ka horreeyay Soomaalida tirahaa war wadankaanada wax noo dhaamo ma lahan. waxaan leeyahay dhalinyarada waxaan u sheegayaa wixii meeshaan noolagu sheegay ma yaalaan iyo wax u dhow midna. waxa weeye wadankaanada wax noo dhaamana ma lahan. waxaan ugu baaqayaa nin walba meesha inuusan kusoo lugeyn, inuusan isku soo aadin. muddo hadda 5 sanadood laga joogo ayaa ahayd markii qaaradda Yurub ay ku qulquleen qaxooti aad u badnaa, haba badnaadeen Suuriyiin kuwaas oo ka cararay dagaalada dalkooda aafeeyay. qaxootigaasi ayaa intooda badan waxa Yurub ka galeen dhanka iyo Greek, waxaana jiray wadamo gacmaha u furay dadkaasi haba ugu horeeyay wadanka Jarmalka. haddaba 5 sanadood kadib maxaa iska bedelay nolosha qaxootigaasi la qaabilay? waxaan umurtaasi ka wareysanay Malyuun Cali Gacal oo hadda ku nool magaalada Berlin ee wadanka Jarmalka. waxa ay khadka taleefanka ugu warantay wariyahayaga Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. xilligaas waxay ahayd xilligii uu qaxootiga ugu badnaa uu Yurub uu soo galay ayay ahayd runtii. xilligaasna soo dhaweyn horta waa ay ka jirtay Yurub, waa nalku soo dhaweeyay maadaama aan ahayn dad cusub. dabeetana waxna la dejiyay meel kaamya ayaa nala dejiyay, muddo ayaan ku jirnay. kadibna waxaa la sameeyay waxna loo qaybiyay wadanka intiisa kale, gobolada wadanka ayaana loo qaybiyay oo nin walba waxaa loo geeyay meel uu kali ku yahay. inta badan kali meel aan ku nahay ayaa nala geeyay. soo marka marxaladeena saas ayay ahayd bilowgeedii. hadda ku dhawaada 5 sano iyo xoogaha ayaad joogtaa dalkaasi Jarmalka, marka ma shaqaysaa mise waxbaad barataa? walaale xaaliyan horta arday baan ahay, waxbaan bartaa, laakiin dhowr sano aan shaqeeyo waa ay jirtaa, waa aan soo shaqeeyo. haddana wadankaana waxay tahay qofka marba hadduusan wadanin wax uu ku shaqaysto ama uusan lahayn xirfad, way adag tahay inuu ka shaqeeyo. shaqooyin adag baa laga shaqeeyaa, saa daraadeed qofku waa inuu wax bartaa. marka hadda waxbaan bartaa. kolley markii aad ka tegaysay dalkaaga hooyo oo aad u hayaamaysay dalalkan Yurub, ujeeddo ayaad lahayd ama hadaf ayaa kolley niyadaada ku jirtay oo aad u tagtay dalkaasi Jarmalka. marka wixii aad ka filaysay ma kala kulantay? waxyaabo badan ayuu qofka marka uu wadankiisa uu kasoo tegayo uu ku fikirayaa, uu rabo inuu qurbo ku noolaado. inta badanna sida aan kusoo fikirno kalama kulanno wadamada Yurub, waana waxa ugu adag oo qofka uu la kulmana waxa weeye in uu hadda iyo nolol cusub inaad asaasto oo aad from zero kasoo bilowdo. marka waxaan maleynaa wax sahlan ma, waxyaabo badanna waa la kulmay. marka muddadii aad joogtay hadda 5 sano iyo xoogahaaga aad joogtay dalkaasi Jarmalka, marka caqabad ugu weyn ee aad adigu la kulantay maxay ahayd? wallahi niyo caqabada ugu weyn oo aan la kulmay anigu waxa ay ahayd afka luqadda. waxa weeye meel dad aadan ku af ahayn oo aadan garanayn, meel aadan garanayn, Soomaalina uusan kula nooleen oo aad kaligaa tahay. badanku dadka kaligood ay ku soo aadaa inay meel ku noolaadaan. aadi u adag tahay oo aad kaligaa guriga ka bixaysid oo ku soo noqonaysid oo maxaan ku raahdaayay qofkii aad rabto inaad wax ka iibsato wax aad asagana kuma afgaranay aadna ma afgaranaysid. runtii aadi u adag tahay. marka waxaan dhihi lahaa anigu xagga luqadda ayaa nagu adkeed iyo shuruucda wadankan oo aadan garanayn halka ay wax ka jiraan
waxaad ku saxan tahay iyo waxaad ku qaldan tahay labadana way isku xiran ayaan filayaa. marka dad badan baa waxaa jira iyagoo wax bartay ama dalkeena oo kale iyagoo shahaadooyin haystay jaamacado haystay ama xirfado kala duwan lahaa meesha tegey haddana shahaadadoodii waxbarashadooda ay noqotay wax kama jiraanba oo dib dugsiyo sare iyo meelo kala duwan marka la yidhi dib usoo bilaaba marka dad noocaasi ma jira aad la kulantay adigu inta aad garanayso? haa walaal waa ay jiraan dad noocaasa anigu baan ka mid ahaade waxa waaye waa run oo wadankeena shahaadooyinkeena inta badan lama aqoonsano qofkii wuxuu ku qasban yahay inuu hadda iyo bilow uu wixii dib ugu laabto wadu doonayo inuu maxaan ku rahdayay uu nafsadiisa isbedel ku sameeyo uu yaani noqdo qof halka u yimid wax ka qabsada ama horumar sameeyo rabo waa inuu isku sameeyaa isboolisiin wax la yiraahdo. ugu dambeyn marka dad baa jira weli dhalinyaro ah oo wadanka weeshay doonaan baa ka joogaane weli ku taamaya ama ku haminaya in uu Yurub uu mar uun tago ama uu soo tahriibo maxaad marka dadka noocaasi kula talin lahayd maadaama adigu aad way aragnimo u leedahay wax badan aad soo martay? walaal horta aad baa u mahadsan tahay waa run oo halkaan waxyaabo badan waan kala kulanay dadkana waxaan u sheegi lahaa oo aan dhihi lahaa bulshada hadda u soo hanqaltaagaysa in ay u soo hayaanto halkan horta waa tijaabo fiican oo qofku way wanaagsan tahay inuu mar tijaabiyo laakiin ma dhama wax naf loo huro ma gaarsiisna heerka. haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamada gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafiyo lana wadaag saaxiibada haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi.